kulan ay guddiga danaha jubbooyinka ee wadamada Scandinavian ku yeesheen magaalada Oslo ee dalka Norway gaar ahaan xaafadda Tøyen ayaa iskula meel dhigeen baahida loo qabo nabad waarta oo lagu soo dabaalo guud ahaanba gobolada koonfureed ee Soomaaliya gaar ahaan gobolada jubbooyinka iyo Gado. guddigan oo kulankoodu ahaa wada tashi ayaa isla gartay in ay lagama maarmaan tahay in la garab istaago dadaal kasta oo lagu doonayo in maamul loogu sameeyo gobolada jubbooyinka iyo Gado isla mar ahaantaana lagu raadinayo nabad waarta oo lagu soo dabaalo gobolkan waxaana ay soo saareen baaq taageero oo ay ku garab taagan yihiin dadaalka hadda ka socda dalkaasi Kenya. guddigan oo isagu matala jahliyadda jubbooyinka ee dalalka Scandinavian-ka ayaa ku nuxnuxsaday in maamul sameynta goboladan ay u taalo dadka iyagu dega goboladaas waxayna ka codsadeen xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya inay u hagar baxdo nabadeynta iyo maamul sameynta goboladan oo ay sheegeen in dadka ku dhaqan ay daashadeen oo ay ragaadiyeen colaado ba'an oo muddo badan ka jiray goboladaas. guddigan ayaa sidoo kale waxa ay wax lala yaabo ku tilmaameen dadka iyagu ka hadlaya warbaahinta ee diidan in nidaam ismaamul oo qayb ka ah dawladda Soomaaliyeed loo sameeyo goboladan waxayna isweydiiyeen ujeedada dadkani ay u diidan yihiin maamul sameynta goboladan. Garaad Saalax Xuseen Axmed oo isagu ka ahaa guddida kulanka ka qayb qaadanaysa ayaa isagoo hadlaya waxa uu yiri aanu aaminsanahay in maamul loo dhan yahay oo sal balaaran oo ah kii uu dadka ay dalkaaba ku dagi lahaa in uu halka ka soo bixi doono waxa ka dhimanna in la dhameystiro ayaan ku baaqaynaa waxaanu ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya in arinta Jubbaland ay si xagar leh u hayso aragti midaysan oo positive ay ka qaado. waxa isaguna sidoo kale halkaas ka hadlay Daahir Xaaji Maxamed Xuseen oo yiri meesha jubbooyinka waxa maartay ku dagaalami jiray beelihii ku dagaalami jiray una sab sheeganhay ayaa maanta loo sameeyay in ay heshiiyaan oo ay maartay dawladaha jaarka iyo IGAD ay maartay u sameeyaan inay heshiiyaan. guud ahaanba kulankan oo socday muddo saacada ay guddidu ku taageereen dadaalada hadda socda ee lagu doonay in maamul loo wada dhan yahay oo ay qayb ka yihiin guud ahaanba dadka dega gobolada jubbooyinka iyo Gado loogu sameeyo waxayna ku booriyeen dhinacyada udub dhaxaadka oo dadaalkan inay kordhiyaan hawlqabadkooda ku aadan kamira dhalinta shaqada quruxda badan ee u hayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan goboladan saddexda. ugu dambeyntii waxa halkaas tixgaaban oo gabaya ka tiriyay Cabdi Ibrahim Magan Cirjeer qabqabliya safkiiso sida hore hamoodina qabiil sara ku jeexdo sida hore hamoodina kuwa siraha qaado sida hore hamoodina musuq maasuq subaglo sida hore hamoodina samac laba wajiilo sida hore hamoodina markay sana xumaatay dadweynuhu sabolaan sareenka iyo galeyda midka ribada saartay suuq madow ku gadayo sida hore hamoodina. guddidan ayaa isku raacay in la qabto shirar isdaba jooga oo looga wada hadli doono arrimaha ku saabsan jubbooyinka iyo qaabka loo wajahi lahaa nabadeynta iyo maamul sameynta goboladaas. Umar Cabdi Afey, Universal TV.